Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Isku duwidda Howlaha Qaranka Dr. Fred Matiang'i ayaa sheegay in gacanta lagu dhigay in ka badan 8 eedeysanayaal oo lala xiriirinayo qalalaase lagu bartilmaameedsaday kolonyo baabuur ah oo uu la socday madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto. Ciidamada booliska ayaa raadinaya tuhmanayaal kale oo la rumaysan yahay inay dhacdadaasi ku lug lahaayeen. Wasiirka ayaa saraakiisha ammaanka ku booriyay inay dadaalkooda laba jibaaraan oo ay xabsiga u taxaabaan cid kasta oo rabshada dhacday ka qayb qaadatay. Qalalaasaha ayaa maalin ka hor laga soo tabiyay ismaamulka Busia halkaasi oo uu socdaal ku tagay madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto. Dr. Fred Matiang'i ayaa xusay in falkaasi ay geysteen dhalinyaro uu ku tilmaamay qaswadayaal. Waxa uu carabka ku adkeeyay in dhacdooyinka noocani ah ay dhaawacayaan dimuqraadiyadda Kenya. Wasiirka Arrimaha Gudaha ee dalka ayaa wacad ku maray in dowladda ay sida ku habboon ula tacaali doonto shakhsiyaadka kiciya rabshadaha siyaasadeed. Sidoo kale waxa uu tilmaamay in tallaabo laga qaado eedeysanayaasha ay digniin cad u noqon doonto cid kasta oo falkani oo kale damacsaneed. Wasiirka ayaa sheegay in dhammaan musharaxiinta ay xor u yihiin in ay tagaan deegaanada kala duwan ee dalka oo ay dadka qanciyaan iyagoo ilaalinaya xeerarka dastuuriga ah. And I have asked the security team there to look for everyone who was involved in that organization, even if they are political leaders, whether they're elected members of parliament or not, I don't care. Arrest them, we take them to court. No one is allowed to disrupt meetings, and we cannot allow those types of things to happen. Let us debate freely. You know, you don't need the government's permission to go anywhere in Kenya, as long as you are a Kenyan citizen. You don't need our permission to go anywhere. All you need to do is go and visit your friends wherever you are going to, sell your policies, work peacefully with people. These people are very smart, Kenyans, and over the years we have become intelligent. Tutakusikiza, na tutakula chakula yako kama unatuletea chakula, na tutajua vile tutafanya wakati huo. But it should not involve, pushing and shoving and hurting people and stoning others. We can't do that. Taliyaha guud ee ciidamada booliska dalka Mr. Hilary Mutyambai ayaa sheegay in aanay arintani fududeysan sidaas awgeedna eedeysanayaasha la qabtay maxkamad la soo taagi doono. Toddobaadyadii ugu dambeeyay waxaa gudaha waddanka laga dareemayay isku dulqaad la'aan siyaasadeed. Dhowaan ayay ahayd markii la xiray xildhibaanka bartamaha Kisumu Fred Ouda oo lagu eedeeyay in uu rabshad ka abuuray maqaaxi ku taalo ismaamulkaasi. Bishii 9aad ee sanadkan ayay ahayd markii musharaxa xisbiga ODM Jimmy Wanjigi lagu weeraray dowlad deegaanka Migori.